wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka soo qayb galay munaasabad loo sameeyay ardayda cusub ee sanadkan ku soo biirtay kulliyadda beeraha ee jaamacada Hargeysa. kulankan oo loo sameeyay ardaydani ku soo biirtay kulliyadda beeraha jaamacada Hargeysa ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay Cabdiraxmaan Jaamac Ducaale oo ah hormoodka kulliyaddan ayaa ku soo bandhigay madashani aqoonta ay qaataan ardayda dhigata kulliyaddan beeraha iyo qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay kulliyadda beeraha ee jaamacada Hargeysa. gudoomiyaha jaamacada Hargeysa Professor Cabdi Xuseen Kaas ayaa isna si diiran u soo dhaweeyay ardaydani cusub isagoo ku dhiirigeliyay inay si buuxda uga faa'iideystaan muddada ay jaamacada ku jiraan aqoonta ballaaran ee taala jaamacada Hargeysa, taasi oo kula dardaarmay inuu dalkoogana wax ugu taraan. Dr. Cabdirashiid iyo madaxa hay'adda wadaniga maado ayaa iyaguna halkan ka waramay oo si buuxda uga sheekeeyay ardaydani muhiimadda ay u leedahay kulliyaddan beeruhu dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland. ugu dambeyntiina waxaa halkan ka hadlay oo soo gabagabiyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland Aadan Ibrahim oo munaasabadan ku soo bandhigay muhiimadda ay jaamacad ahaan iyo dal ahaanba ay u leeyihiin ardaydana dhigata kulliyadda beeraha iyo kuwan cusub ee ku soo biirayba ka wasaarad ahaan ay si diiran u soo dhaweynayaan ayna la shaqeyn doonaan ardaydani ka baxaysa kulliyadda beeraha iyo kuwan cusub ee ku soo biirayna kulana dardaarmay inay dalkooga wax ugu qabtaan aqoonta ay ka bartaan jaamacadda Hargeysa.